soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada walaalayaal. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa idin salaamayaa. waxaan rabaa inaan ka hadlo meelo badan soomaaliya. waxaa ku hormarayaa cabdiraxmaan cabdishakuur. waxaan arkayay hoteelka aljasiira la dhahayo asigoo camaamad loogu saarayo, yacni shaal horta waxa waaye cabdiraxmaan cabdishakuur, waxa adiga isku moodid ma tihid. runtan kuu sheegayaa, waxa adiga isku moodid ma tihid. waxa waaye bulshada waxay ku moodaa tahay, bulshada soomaaliyeed ayaa u tahay eedeysano. waxaa tahay dad dhulkoodii gata, dad dhulkiis yacni dhulka soomaaliyeed yacni qalqal geliyey. bulshada soomaaliyeed aa u eedeysan tahay. madaxweyne uma eedeysanid, ra-iisul wasaare uma eedeysanid. waxaa u eedeysan tahay dadka soomaaliyeed, shacabka soomaaliyeed. waxaa adi ismoodidnimaba tihid. haddaa aqli leedahay ee maskaxdaada shaqeeyayso, yacni waxa adiga ismoodid ma tihid. bulshada waxay ku moodaa tahay kow. waxaan idin sheegayaa hadda ka hor waxaa la yiray reer miyiga degan xoolo waxay ka qabeen cuntada oo waxa lagu karsadana waxay ka qabeen dhari oo ciidda dhariga laga sameeyay. waa la kasaysin, soomaali way badanaa way kasay. dhariga ciidda laga sameeyay lahaayeen. xoolo dhanna riyay ka lahaayeen soomaaliyey. cabdiraxmaan cabdishakuur sheekadiisaan aad daba joogaa. ridiya maalmaha ka mid ah ayaa dharigii madaxa gashatay. madaxa markay gashato waxaa la yiray si loo kala badbaadiyaa la rabaa. nin waxbuu badbaadi karaa la dhahayaa la wacay oo cidda yani u weynaay reerka, yacni qaraaba loo degaa. haddii la wacay koowa coor midiyii keena, mididiyaa loo keenay. ridiyou qaliyay. coor burusii keena, dharigiyoo jubiyey. markaasu wuxuu yiri haddaa ani joogi lahaay yaa idin tali lahaayuu yiri. ninkaa muxuu sameeyey? ridi ma badbaadini, waa qaliyey. dharigi waa jibiyey, ma badbaadini. wax oo badbaadmiyelo wuxuu taagan yahay ya haddaa ani joogi lahaay yaa idin tali lahaay tolkaygiyo. cabdiraxmaan cabdishakuur dadka maanta camaamada u saarayaano ya wuxuu ku leeyahay aniga haddaa badda iibi lahayni yaa idin tali lahay. taasaan ka soo qaaday. aniga haddaa iibi lahay badda oo iibi lahaynin yaa idin tali lahay oo taagan. qaladkiisu qalad ku saxayaa. dadka camaamadaha u saarayana waa u sacbaayaan, shabax ay u leeyihiin. ninka saas yiro kale waaye. cabdiraxmaan cabdishakuur waxaa leeyahay walaal, waxaan arkayaa turkiga adoo ku dhegan ee dhehaysa carabaa nooga sokayso, carabaa diin wadaagna. turkiga waa muslin. carab iyo cajabna lama dhihin, madow iyo caddaanna lama dhihin. inta muslinaa walaalaha la yiray. carab haddee wax noo qabaysana 30 sane nagu dhex jirtay. waa naqaanaa macaamilkeeda, waa naqaanaa. carab haddee maanta ee anaka ay waxna siiyayso ee xushmo iyo wanaagna siiyayso, berbero ma ongolin. baarlamaanka soomaaliya oo dhahan kuma dhex jirteen ee ma dhiseen. db wall shirkadda la dhahayo baarlamaanka soomaaliya aftiya u qaadeen, ma ongoliyo wer sharcigeeda qasabay kula dhex jirtaa. badda boosaaso maamul goboleed ee la saxiixatay haddayna ictiraamayso ee dowladnimo noo ictiraamayso ee magac soomaaliyeed ictiraamayso, caawo waxay ku dhaqmeen kuma dhaqmi lahaynin. ya turkigu waa dowladna ictiraafsan,
waa dowlad ciidamadayna soo dhistay waa dowlad walaalahayna waa dowlad garab istaag noo samayso waa dowlad cadowga naga jibisay ee maanta jarayhaya cadowgayna ina xaasid tahay oo xaasidta oo soomaali xaasid ku tahay oo soomaali waxa ku tahay horar adigaa iscadeeyey ilan garashay leeyihiin dadka aniga maanta dadka u aqli liito waa garaha wixii meesha leega jiro dadka anaa u aqli liito waana garaa meesha leega jiro iyo meesha leega jecel iyo meesha leega necab yahay walaalayaalow waxaa idin leeyahay cabdiraxmaan cabdishakuur ceeb u dhiman ma jirto cumar cabdirashiid oo adiga ku amray ee awal dhiilka la soo galay kenya dhiilka la soo galay warbadan 10 sano dowlad ma haysan anaka 10 sano dowlad ma haysan hogaami kooxadan oo talaay ma aragtay baddo kenya sheegayso soomaali maxamedey 10 sano dowladda maxamed siyaad markay dhacday 10 sano dowlad ma haysanin magaalada xamar hogaamiye kooxada ka taliyay ma aragteen kenya bad sheegayso ma aragteen baddi yaalleena dhayso badda sheekh shariif oo dhaacada ma arkin ma ogin marna waa ogaay saxiixan dhaadhaayo ee kala hadlaayo ininka cumar cabdirashiid oo iska aamusan wuxuu la aamusan yahay la ogeynin iyo cabdiraxmaan cabdishakuur badda Soomaaliyeed inta qarasho naga galay inta dhibaato noo geysateen inta waxa noo geysata Soomaaliya eedaysan u tiin falaartu way idin ku dhacda falaarku ugu dhacdana gilgilisho kaaga ma hirto falaarku ugu taalo gilgilisho idin ka meerto هذا ما أنت يعني قد كين عاد شقتينو ترى ورا عبد الرحمن عبد الشكور وسيرك قرشان تاهد وسيرك أنا ما أدي بدأ جوي إنه يالين لوجا الله أنه حريسته غير حسام وكل انتي إنه يالين أو شرعية قاي هاي أو جاي عمر عبد الرشيد يا عمر عبد الرشيد وحو جاي إنه يالين يعني وسيرك أرمادة وديلا أضعمو يعني هربادي إسكا وسير رمانت لقو ديبي أبغول كون $1 لقو سياسي لقو يري ما أنت وعارتا فلارتا مركينا إسكا قلقلشو سوماليا إيدي سنوطا وحا اسمو دينا نقاميسد أبا شالها لقو حيرو أبا لقو حيروانو كو صوما ما هبا نيكي داريك جيبيه ريدنا بريي يري يا إذن تليها يا تلكيجيو ودا أني جوج لين ريد وابري درجنا واجبية معوسة ما يجابو وحكوا صفانا يا وعليكم السلام تلكيجيو يا إذن تلي دونه كوبا أو ماشي جوجنا تلك هذا ويا هوي ويا ما تقع ما ماذا إلا سكوبا وعليه رشنا بشبر كيسولا بوبا شمبر كيسولا بوبا توج وأديكوا كلا ويا ما مدكوا صارعي ما هو أمد الصوماليات ما هو أقوياء كصوماليات ما هو حجرت كصوماليات ما هو ويل كسن ويدين تبجوجا عبد الرحمن عبد الشكور شريف شيخ أحمد نيكل اللي يا عمر عبد الرشيد هذا سنة يالتين أمة الصومالية ذو إذا ستين وحقبتين وأجنهاي بالك مذوبة قشن وأجنهاي رفعت كانوجي ستين وأجنهاي صومالية وحيدين لا يا عندها ما لسكتريا عندها ما لسكتريا مايا 10 سنة الدولة ما هاي سنة أنا كوالوجيا حمر ولا سكعنايين هقامي يكو عادي سكعنايين ما أركتن بطس كين شاقي سمايا هجيس كان كهر بط كين شاقي سما أركتن مايا ما نأركن أركها ديدينا وقات غلط كينا وأمت الصومالية سامي حتى إله النبت باديي إله النبت باديي حاسة شقار الله سيو بط الصومالية سادع ودقيي دولة دان جوكتن وادا ما استرتي هو صادق الصي وانت سقرش هنجا شيء انت صادق بعتي إهانة يتضع نوجا مقن عبد الرحمن عبد الشكور وعشاقي كان يدقان تجدا كوته ما قاعد مت ملايين صومالية دا كل متي ملايين صومالية دا كل متي هانت صومالية دا كوبا بدو هرمود وحلا ذا هاي وشبكوين قدلت بربريي مال والبان نقلا سوق علي دبعت والبان ولا جستي إنه كجلجشة ورامرك جلجلشة فلاركو قتال جلجلشة كاجا هرتو رنتا كوشة جيا وحن هذا يا دتك برا وكبرنا بحياة هوية نحني ده هايو مامل كديجك وإحنا قال مسينين ملهي دينه
أنا هدي إني شجع ملي هدينو دقل إيه مريف العله دقل إيه مريف حمر محاكا سيسن هل دقمي حكومان ما جرت مايا هيرشبال محاكا سيسن هل دقمي حكومان ما جرتو قال مدق محاكا سمايسن هل دقمي حكومان ما جرتو مايا قردرده اللي اسكدايو هدا عند عداس يتوغن ما أول كوكشين أمضى حسين هداني دبعتك لها أجيسن هاويها دك هاويها قرابة هاي قال كدل قرتي سنسية ليري حمر نص قاضي الدقين حمر نصي كدقين لا بدك من اللي حكومة هدانيه اللي هدين هاوية إذا كاكلا قيبسة الدقموينك هاويو إذا كاكلا قيبسة الدقموينك هل دقم أبل لما دقم كسو دوادا هدانيه اللي هدين ما أنت maamulka deegaanka wax baa nigala sii laay xaq daradana ma shaqayso xaq darada ma shaqaysto odayaasha xumo madaxa waaweyle dhulkan fadhiista maamulkaas digil iyo mariflaale asiga ka taliyo asiga shaqo kule ilaan 4.5 wax lagu qaybsaday Soomaali Maxamed runta in la isku sheega fiican 4.5 wax lagu qaybsaday nin walba deegaankiisa uu leeyahay nin walba deegaankiisa maamulaha uu leeyahay dulmiga hal iska daayo odayaalaha iyo naaga banaan baxay waa arkay shaqo kuma leedin maamulkaas asiga baraawa shaqo ku leh asiga maamulka deegaanka shaqo ku leh asiga madax ka ahaayo dadka meesha u dhasheen ilaan xaq darada ma fiicno xamar yaa ugu badan xamar yaa racaweyn ugu badan حمر رعوين يا أقبض أنت شقيستي قناعسك وكله وحكله والرعوين هل دقمة ما كسيسن أويو سؤالها في عنه هل دقمة ما كسيسن مايا كما سنين وحاليري أتكيس الدنبالهاو أم بأفي فهورو سومالي ذو عيترا أتكيس الدنبالهاو أم بأفي فهورو مركي إنا أنت نقول كودو وقتكتين هذا نوايدين القيبسين ناترا هنا وغلط غلط لقو ما صحو إيس عشادة اسكو حشادة حالون جاءنا قنينة اسكو حشادة قرتي نقاطها ليا أمد مسلم كالليحظة رعوين إذا اسكو تلايسو أيضا وحوى البقعة هيسو كالليحظة إذن ليا كو انتاسا كالليا دادك ما تبرا وكاقايليها وحان ليا سومالي محمدي وحان ليا اسكو دومنادو ورتو كو دادك سوماليين إن لا اسكو دومنادو maamuladan caawan noola dhis raali kamaniin anaka shacabka Soomaaliyeed maanta afti hadii loo qaado federal ma yeelayno wala ogyahay shacabka Soomaaliyeed maanta afti hadii laga qaado ma yeelayaan maamulada waxa idin sheegaya maamul walba boqol xildhibaan 60 wasiir oo leeyahay lacag fooq la aqliya qaataan u yaraan maanta dadku ma dhiman hadii la shan qofood oo ku dhimahay magaalooyinkooda baahi way u dhimahayaan waxay cunayaan xalaal ma aho cashuurta in la mideeyo ma ongolo inuu dalka israacdo ma ongolo waa niman mooro inta ooteen xero ooteen xoolo ku celcishteen waay ee maalin walba hal inta soo baxsadaan qalahayaan maalin in 100 neef inta mooro iskugu keensaday ee maalinba hal baqalaayata shacabka maalin walba hal la qashaa maalin walba dhiigooda la jaqaa ila Soomaalinta qiyaamo yoomal qiyaamo wala isweydi doona wala su'aali doona shacabka Soomaaliyeed rafaadka ku dhacayo wala su'aali doona hadii maanta la naqal lahay Soomaali wax uma baahan lahayn hadii cashuurteeda inta la mideeyo قدومي ku xigan يعني قبل walba yeesho قدومي ku xigan ee 60 boqol ka xildhibaan ee 60 kan wasiir ee labadan boqol agaasimo intaan lacag qaadayso maanta hadii la yiraahdo xoogiina maala murqiina maala hadii la yiraahdo wallahi billahi talaa cashuurta la miday Soomaali ceerna ma rabteen dadna ma tuugsateen maanta rafaadka ku jirtan kuma jireen dal isku filan aan qalahayn dal isku filan aan qalahayn Soomaali mushkilada la soo dhaxdhigay waa 4.5 waa waxa la mushkilada la soo dhaxdhigay waa maamul goboleed federaal mushkiladana la soo dhaxdhigay maamul walbo cashuurta hala mideeyo ma ongolo maamul walbo dekadaha waa iibsayay maamul walbo dhibaatada ka jirto reer qaas ah ku nool maamul walba fiiri reer qaas ah ee madaxtooyada fadhiya ku nool
ummadda kalena way baabaaday waa laga baxayaa insha allah dowladda cagaha dhulka way dhiga doontaa insha allah bidnillaahi kariin maamul goboleedna waa la tuuri doonaa ya federal waa la tuuri doonaa maamul goboleed la tuuri maayo maamul goboleed waa jiraa iloosu maamul ku xigeen bis laba qofood bisa u tali doonta insha allah gobol walbo waxaan faraha badan leh iyo waxaan xildhibaano faraha badan leh iyo waxaan waxa lagu leeyahay wasiirka arrimaha gudaha waxa lagu leeyahay wasiirka arrimaha dibadda intee u jeednaa Soomaaliya intee tagnay waa dawlad gooni wasiir la magacaabo wasiirka qorsheynta wasiirka arrimaha gudaha wasiirka hebelooga wasiirka amniga wasiirka amniga hal wasiir oo leeyahay subhanallah dal dhan oo uu ka 20 milyan dhameeynin haddana wasiir hebelo war waxa idin la Soomaali weyne insha Allah waa la guuleysaha guul iyo gobonimeyna ku dhamaahay wax walbana muujeeda dadka siyaasiyiinta ee qaladka galay haddana inay qaladkoodi lagu sii camaamo saara rabo war ka waantooba ummadda Soomaaliyeed way idin jeeda ummadda Soomaaliyeed sadalku leediina Allahna anaka nin adda oo siyaasi aba madaxweyne aba waxa indhaama ma jirto ciidda waa u dhashay Soomaaliya ahay madaxweyne ana ongol inuu madaxweyne noqdo ra'iisul wasaare ana ongol adan leeyahay oo ciidda iyo calankan leeyahay oo qof iga ma xigto oo malaayiin ani ila mid aha jirto malaayiin ani ila mid oo fikirka qabto ayaa jirto oo reer hebel u hoggaansanaynin ee Soomaalinimada u hoggaansan ee dadnimada u hoggaansan ee wadanka inuu nabad noqdo u hoggaansan ee yani daara dhisan u hoggaansan oo wax walbo ma sha Allah tabarakallah waxa idin leeyahay Soomaaliya waa idin salaamay intaas u soo galay dadka Soomaaliyeed waxa leeyahay guul iyo gobonimo gacmaha la isqabsado badayni waa soo dhacsanay badda ilaalay u baahan tahay inay yani dawladda waaweyn yani u dhiibano dawladda waxaan ka codsan lahay badda military yani dawladaha oo qubadda la sida Turkiga oo kale yani heshiis la gasho oo badayna ha noola ilaaliyo oo Kenya iyo galluuna ka goranayo soo galin xuduudayna aan xirano intaas adii lahay guul iyo gobonimo waxa leeyahay Soomaaliya ha guuleysato Soomaaliya ha israacato Soomaaliya waxa leeyahay dadka qabiilka wadow dadka xaraan ku naxo dadka tuugada dadka wadanka dhacayo meel naga fadhiista walaas bartay waxa dhici kartaan waa dhacdeen wixii hanti dawlad amba dhul dawladeed ha ahaado amba shirkad ha dhisato amba nin ganacsata ha dhisto amba waxaad dhisto waa idin kala soo celiha insha Allah bidnillaahi kariin farmaajo haduu soo noqdo waa laga soo celaa qof walbo hotelka rabta dhis daarada ka dhis dhulka waa calaamaysan waa dhul dawladeed idin kala dhisme idin dilay insha Allah bidnillaahi kariin yoomal ayaam maxkamad waa idin la soo taagaya yoomal ayaam dadka dhulka dawladeed boobay ee dhacay ee dhibaatada Soomaali u geystay yoomal ayaam maxkamad waa ka soo muuqan doonaan insha Allah bidnillaahi kariin marka waa idin salaamaya waxa